daawadayaal ku soo dhawaada TV-ga Soomaalida Holland waa barnaamij gaar ah ku saabsan socdaal uu dhawaan wadankan Holland ku soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jelani Nuur Iker oo ka qayb galay kulankii caalamiga ah ee dhawaan ka dhacay magaalada Brussels ee wadanka Belgiumka. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dadkeedii soo baxay inay ku soo noqdaan mudane Jelani Nuur Iker waxaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku leenahay kusoo dhawaad Netherland. waxaan mar kale kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad noo hurta caawa in akhbaarta aad naga siisid maxaa yeelay baahi ayaan u qabnaa waddankeena hooyo hami iyo rajo ayaana gashay aad iyo aadaan u mahadsantihiin adiga iyo tiimkaaga dhammaan dowladda xubnaheeda kala gedisan odayaasha dhalinyarada haweenka siyaasiyiinta reer Holland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii haddaan wax yar warbixin idinka siiyo safarka aan u soo baxnay Yurub anigii wafdi aan hogaaminaya oo baarlamaanka ah ayaa si rasmi ah loogu cazumay waddanka Belgium magaalada Brussels oo ka socday shirka African Pacific Caribbean EU da joint assembly meeting oo ahayd markii ugu horeysay si rasmi ah oo Soomaaliya baarlamaanka loogu cazumay. wafdigaas in hogaaminaya waxaa ila socday laba xildhibaan kale oo kala ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda iyo xubin ka mid ah isla guddigaasi baarlamaanka ah iyo la taliye gaar ah oo baarlamaanka uu leeyahay. shirkaas waxaan ka ahaan goobjoog ama observers waayo inta aan ka maqnayn shirarkaas oo ah ACP EU ilaa 22 sano ayaan kasoo maqnayn. hadda ayaan markii ugu horeysay si rasmi ah loogu cazumay laakiin waxaan aad iyo aad ugu dhageysanay mabda'ooda iyo ajendahooda iyo siyaasadooda ay kula dhaqmayaan European Unionka xubnaha ka tirsan ACP ama Africa Pacific and Caribbean oo ilaa 78 waddan xamal ah. runtii Soomaaliya waa ka tirsanaan jirta ururkan waagii la dhihi jiray Lome Agreement, Georgetown Agreement ayaa ka maqnay muddadaas oo mataqaanaa oo 20 sano ku dhaweyd ayaa hadda waxaa la saxiixday waxa la yidhaha Cotonou Agreement oo annaga hadda aan ka maqnayn oo ah agreement ka dhexeeya ACP iyo EU da oo ah sidii loo horumarin lahaa dhinaca bulshada, dhinaca dib u dhiska, dhinaca horumarinta oo waddamada EU ay u qaadan lahaayeen maxaa la yidhahdaa arrimahaas waddamadaas Africa iyo Caribbean iyo Pacific. guddiga Yurub uu qaabilsan xubinimada way ka soo dhamaatay waxay inay yiraahdeen Soomaaliya waa in xubin ay noqotaa. intii shirkaan joognay waa la gudbiyey waxay ugu maqaalahay in golaha wasiirada ay ogolaadeen Cotonou Agreement oo hadda mar dhow lagu siixi doono shir kala soo socdo oo ah full membership in Soomaaliya ay ka tahay maxalli ururkaas. xaaladda dalka xagga amniga horumar badan laga sameeyey waa ka warqabtiin dowladii gurub ah oo aad iyo aad ugu soo horjeeda jiritaanka Soomaaliya ayaa aad iyo aad maanta ula dagaalamaya jiritaanka Soomaalida ama dowladii timaado. runtii hadda waddanka gobollo badan ayaa maanta aad u fiican xamarna way fiican tahay laakiin waxaan annaga aan qabsan cidnoo qabanaysa ma laha. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dadkeedii soo baxay inay ku soo noqdaan annaga isdilnay
civil war dhacay ummadii waxay go'aan gaartay inay maanta dib u dhistaan maxaa la yidhahdaa waddankooda haddii la fiiriyo ciidanka Uganda ciidanka Kenya ama ciidanka Djibouti ama ciidamada kale Soomaaliya 50 sano ka hor wax soo qabatay maanta inaan ciidanka ku xirnaan waxay nagu tahay arrin oo mataqaanaa oo gacanteena aan ku gaarnay ama kasbano waxaas laakiin insha Allah mar dhow waa laga bixi doonaa ayadoo maanta maalintii ugu fiican tahay dowladda hal sano ka yar jirta horumarka ay sameeyeen iyo habka ay ku socdaan iyo nidaamka ay ku socdaan haddii shacabka gudaha iyo dibadda gacanaysiiyaan waxaan aaminsanahay anaga waxba ma qaban karno unless ayna siiyaan gacan dadka shacabka Soomaaliya oo gudaha iyo dibadda jooga ninka Soomaaliga muwaadinka ah waxbarasho iyo caafimaad oo free noo hela oo ku isticmaalka alxamdulillah oo ku isticmaal laakiin maxaa loo baahan intaas lagu gudbo ay tagto waddankiiba diaspora maxaa laga yaabaa dadka dibadda soo aaday oo joogta xoog inay saaraan dhinacaas ah waxbarashada iyo caafimaadka inay Soomaaliya ka taakulayaan dhibaatada ugu weyn haysto haddii carruurtii waxbarasho loo helo waxaan aaminsanahay in qori oo raadsanaynin waqti uu helaynin dagaalna uu sameeynin hadda shaqo la'aantii iyo waxbarasho la'aantii ayaa isugu kulmay ayaa qolaya ka faa'iidaysatay oo dhahaysa mataqaan intaan aan kusheeganaa waxaan sameey taasi maxaa lagu bixi karaa in dadka dibadda soo aaday amniga ay ku haystaan quruxdeeda ka muuqata hadda dhalinyarada waxbartay si wax u barteen in at least hamar taas oo dhahda dad badan ayaa fahamsan in qabiilka laga gudbo see loo gudbaa once aad tahay xildhibaan qaran ama lagu soo xulo ama lagu soo doorto waa inaad ka gudubtaa maxaa la yidhahdaa qabiil aniga hadda xamriina ku dhashay inaan baarlamaanka istaagno xamriina waa la dilay waxaan matalayaa markaan qaranaan matalayaa iraahdo waa tartiib xamriina oo naxariisay waa jiraa laakiin waxay imaanaysa maalin laga gudbo ninka hadda sharci ayaan mataqaanaa bardhow la soo saari doona xildhibaanada degmooyinkooda ama qabiil ama isku jawaabayo oo media ka hadlaya hadda xabiibar magaalada gudoomiye wuxuu yidhi sharcigaan gudbinay in mataqaanaa xildhibaan hadduu media ka hadlayo inuu u hadlo qaran ahaan wuxuu مثلا خرج هو house of the people معلينا الصومال ولا هم شعب وح كأنها يدك أو اسكور إماد يوحي أصورة فاضمي حياة جديدة مرتاز تاس يعني قال لي قبيلك ودي وجود بدورة لكن حتى أفرتاز صار بريتي الله يهدينا نقول لقين سيدونا يجيلنا waxyaabaha ugu weyn oo mataqaanaa ay igala hadlan jireen markaan gaar ahaan wada arkay guddoonka jaaliyada mataqaanaa magaalada Den Haag waxay ahayd cabasho oo dhinaca mataqaanaa oo ah problemka haysta xagga mataqaanaa Soomaalida dhibaatooyin xagga ka haysta carruurta laga qaato iyo dad mataqaanaa sharci dib loo celinaya arrimahaas oo kale in mataqaanaa ay igala hadleen oo arrintaas aan eray mataqaanaa wax hadda dowladda diyaar uma aha Soomaaliya inay mataqaanaa ay ku dhiirigeliso wadamada dadka magaalada siyaasadda siiyay ama magaalada nolol siiyay in wadanka dib loogu soo celiyo ninkii ku soo noqonaya inuu ku soo noqdo si mutadawacnimo oo asaga oo leeyahay oo mataqaana waxa kale aan kala hadlay in arrinta maanta Soomaaliya ee maanta meel fiican marayso ee mataqaana ay laftooda loogu baahan wadankii dib u dhiskiisa iyo horumarkiisa inay iska yimaadaan oo mataqaana ay wadanka dib ugu soo noqdaan arrintaasi waa isku afgaranay in mataqaana aan geyn doono baarlamaanka oo codka shacabka matala cabashadooda inaan geyn doono annagana mataqaanaa ay ii ballan qaadeen in sida ugu dhaqsiyaa leh intii mataqaanaa oo awoodooda ah inay wadanka dib u dhiskiisa ka qaybgalayaan iyo horumarintiisa ayna ku soo noqon doontaan Soomaaliya sida dhaqsiyaa leh insha Allah والله بوقشدان iyada waxaan horta ku helay warbixin aad u muhiim ah oo dadku ay u baahan yihiin annaga dhan wadankan waa jecelahay waana inaan ka war helno oo xaaladda wadanku maray in ka war helana wax fiican weeye marka gudoomiye xogeenku si fiican oo waafi ah runtii
ayuu nooga warbixiyey waddanka xaaladiisa iyo baarlamaanka iyo waxay damacsan yihiin aadna wuu noogu dhiirigeliyey runtii in laga qayb qaato waddanka si kasta oo looga qayb qaadan karaba guud ahaan waddanka Soomaaliya xaaladda maanta uu ku sugan yahay iyo horumarinta waxyaabihii horumarka ugu dambeeyay ee dawladdu sameysay waxa kale uu taabtay baarlamaanka iyo shaqooyinkiisa waxyaabihii ay qabteen iyo waxyaabaha horyaala ugu dambeyntiina wuxuu ka hadlay dadka qurba joogta ah roolka ay ka qaadan karaan dib u dhiska waddanka iyo waxyaabaha looga baahan yahay runtii wuxuu kulan aad iyo aad xiiso u leh waan horay looga baran waddanka Holland anaka maadaama reer Den Haag aan reer Holland aan nahay farxad weyn waan u haysanaa gacmahoodana waa ku gacmo furan waa ku soo dhaweynay guul iyo wada hadal fiican waan la yeelanay waxyaalo aan ka warhaynin isku imaasho ahna waan ka wada hadalnay wuuna naga dhaadhiciyay waxyaalo fiicanna waa noo sheegay waxyaalo fiicanna waa ka qaadanay fikrado fiican oo aanan u haysan in Soomaaliya maanta ay saa tahayna waa ka helnay daawadayaal waxaa intaa inoogu eeg barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku soo qaadanay socdaalkii uu waddankan Holland ku soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jelani Nuur Ikar inta aynu mar kale dib ugu kulmi doono barnaamij mid kan oo kala waa aniga iyo Axmed Shanle oo ku dhaafaya nabadgelyo